بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali Maxamed meel walba joogaan. waxa ka inooga sii socon doona insha Allah gabayadii diiniga ahaa ee taxanaha. waxa gabayga maanta la yiraahdaa raggii dumarkii u dhaxay. wuxuuna daba socdaa gabaygii toddobaadkii hore ee dumarka la soo dhoofiyey ragga xumeeyey ka hadlayay. kana wuxuu ka hadlayaa raggii dumarka xumeeyey wuxuuna ku bilaabmaya insha Allah sidan: raggii dumarkii u dhaxee daa'in ugu deeqay qalbiga ka dilay, raggii dumarkii dugsiga u ahaa dooxay, raggii dumarkoodii deynta u galay, dahabkooda u iibshay si ay daar iyo mustaqbal dukaan dalka uga furtaan. nin doqonoo liita uunbaa gabadh dumara dhaawaca. raggii dumarkii ubadkooda hooyada u ahayd, dugsi lagu hirto ahayd, dibadda u saaray. raggii dumarkii dheemanka ahaa, dubaaqooda miyirkooda dhimee axdigii dumiyey. dhaaxaa gabadh degan nin damiina helay, dhaaxaa hooyo dantu dibadda dhigtay dabayluhu qaateen. dhaaxaa nin guna qalbi dilaacshay hooyo damiir leh, dhaaxaa dariiqada qurbaha hooyo Soomaaliyeed daalan tahay duufaanadu sitaan. dhaaxaa gabadh dulqaad iyo dabci wanaagsan, dadnimo iyo qurux aan duugoobayn lahayd doqon dulaysta. dhaaxaa hooyo daashay ma caruurtay day mise dabka qalbigeeda ku daaran. dhaaxaa ubadkii dayoobeen aabbo ka dandoorsaday. dhaaxaa nin doqona reerkiisii ka doorbiday inuu la dadab galo gabadh da'yar dalkii. dhaaxaa aabbo Soomaaliye dayacay doorkii uu reerkiisa ku lahaa. dhaaxaa dollar iyo diinaar una u dhudidin ku dumiyey reerkiisa. dulucdu waxay tahay dumar in dalaalnimo farxadeed loogu deeqo mooye, ragow maxaa damaca waalan idin baday idinkoo tii hore daryeelin iyo ubadkii. dumarow ka ducaysta doqon kibir badan, nimaan dantiina ogeyn idinkuna dan hawgelina. waad mahadsantihiin dhammaantiin. waxaan leeyahay ceebta qurbaha taala Allah ha asturo insha Allah walaalayaal. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.